Jilaaga Govinda aad wada taqaanaan ayaa waxaa laga soo duubay muuqaalkaas wuxuu dhaliyay dood fara badan. Haddaba muxuu yahay muuqaalkaas Govinda laga soo duubay ee baraha bulshada ku faafay ee dhaliyay muranka faraha badan? Fadlan nala dhammayso muuqaalkan bilow ilaa dhammaad. Haddii ay tahay markaad kugu horreyso aan soo booqato fadlan furo calaamadda gambaleelka si aad ula socoto muuqaal walba aan soo gelino. Maanta waxaan ku soo qaadanaa wararka xanta ee la xamariyo. Jilaaga Govinda ayaa la sheegay kilib laga soo qaaday asagoo diyaarad saaran oo ku jiifa gabar yar garabkeeda. Kilibkaas ayaa baraha bulshada wuxuu ka dhaliyay hadalhayn fara badan. Jilaagan ayaa hadda la sheegayaa in uu ka maqnaa fanka in muddo ah oo hadda dib ugu soo laabtay Jilaagan Govinda ayaa waxaa lagu sheegay da'diis inuu yahay 61 jir. Govinda ayaa la yiri asigoo safar u socdo oo diyaarad saaran ayaa waxaa laga soo duubay muuqaal selfie ah. Muuqaalkaasi waxaa ag fadhisay gabar aad u da'yar. Govindan waxaa la arkayay asigoo gabadha garabkeeda ku jiifo. Muuqaalkaas ayaa baraha bulshada wuxuu ka dhaliyay dood fara badan. Dadweyne qaar ayaa waxay ku sheegeen Govinda inuu yahay nin oday ah, sidaas darteed uu yahay nin shaxaari oo raadinaya gabdhaha asiga aadka aagay oona yahay naagdoon. Inkastoo ay ka hadashay xaaskiisa ugu dambeyntii, laakiin dadweyne qaar ayaa waxay aga falceliyeen qaabo fara badan. Mar la waraystay xaaskiisa oo ka hadashay arrintaas, waxay sheegtay ninkeeda inuu yahay jilaay caan ah. Waxay tiri marka laga soo tago jilaaylamada, ninkeyga hal caado oo lagu yaqaano ayaa jirto oo aniga xataa marar badan aan ku arkay oo aan la yaabay. Ugu dambeyntii dabeecadaas waa la qabsaday ay tiri waana ku aqaanaa. Dabeecadaas waxaa ka mid ay tiri ninkeyga markuu diyaarad u raaco runtii wuxuu ka baqayaa diyaaradda markuu raacana oo barkado. Waxay tiri mar xitaa aan soo gadanay aan soo safarnay, waxay tiri eygii ayuu ku dul seexday baqdin darteeda. ninkeeda waxay tiri diyaaradda xataa marka ay nuxnuxsanayso qofka asiga u dhow ayuu ku dhagaya ayay tiri. Waana dabeecad aan ku aqaanay tiri. Govinda wuxuu ka baqaa diyaaradda marka uu saaran yahay, istoo jilaay caan oo dunida laga yaqaano uu yahay, haddana wuxuu ka baqaa marka uu ku safriyay diyaaradda. Govinda xaaskiisa waxay sheegtay dadka qaar oo hadallada qaabka daran sheegaya. Waxay tiri Govinda taasi waa caadadiisa, dhibaatana ma laho, waana ku naqaanaa ayay tiri. Inkastoo dadweyne qaar fara badan ay qaabo fara badan ay ku kala sheegeen ugu falceliyeen arrintan ka dhacday diyaaradda dhexdeeda ee Govinda ku jiifay gabadha yar garabkeeda. Dadka qaar waxay dhaheen Govinda waa nin da'a, waxaa laga yaabaa in ay ka tagtay xasuusta. Dadka qaarna waxay aad u sheegeen Govinda inuu yahay shabeelnaagood maadaama uu ahay yaraantiisa nin shabeelnaagood ah, haddeerna uu weli sidiis u yahay caadooyinkiisii qaabka darnaa weli aan iska bedelan. Govinda waa jilaay inta badan Bollywoodka ka maqnaay laakiin dib ugu soo laabtay Bollywoodka.